نبي الله إبراهيم ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii saara la odhan jiray saarina gabadh qurux badan bay ahayd waa nebi isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aad u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safaro haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badanoo saara la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaado boqorkaa loo geey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi alatii macak war tan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim wuu ka cabsado oo wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhi haybeenin gabadh kastoo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku idhi waa walaashay waanaad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo aynlo walaalle ma jirto ee haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yar isugo waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay baratay ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wabirasuulik waaxsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaanaan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya haada alkaafir ilow gaalka ah igu ibtilayna waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuulih rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay ee nafti isugu timi waa labadooda ayaa istidhi oo hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tidhi illa waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay warbal yara sug bay tiro waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxay naftu markay qabatay baa istidhi war haddana waa laguu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad buu haddana isku dayay ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaas soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timo wa huwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yaho salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxaan leenahay haddaad rabto in ducada lagaa aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday kuwii godka galayna ilaahay kurbada waa kaga fayday gabadhii boqorka dhami uu kahaystayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey